بسم الله الرحمن الرحيم نبضه وضيال كسو دوادا برنامج كني فلانقين سياسة ضمانت قضبضا اينو ما انت برنامج كني كسو قادن دون الضوضيال وحاكم دا حلبان محمد أبيب وأفلقا دحنو قيسي سفارة سومالي لان قطال الدلك جبوتي magacaabista ra'iisul wasaare ku-xigeenka federaalka Soomaaliya oo uu buuqadan ka taagay qodobada iyo qodobo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa daawadayaal soo dhawaada barnaamijkeena maanta sida aynu wada ogsoonahay daawadayaal muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa jirtay xog iyo xam badan taas oo ka jirtay siyaasadda Soomaaliya هذا وحنتاس محايد حنتاس وحايد داوضيال إلا هذا الهين حل خلقا قاضي دونو رئيس الوزراء كحيجين كفدرال كصوماليا مطلع صالح أحمد قاسم كاس أولو بدلي دونو سيدا الشيء يحقه ورركو هليان أما حل خلقا مقعابي دونو بيش الرحموين كاس أو خرقو بلان قاضي مدحويني حسن شيخ محمود haddaba xildhibaano ka soo jeeda gobolada waqooyi oo is abaabulay ayaa arinta ka biyo diiday oo xasan sheekh maxamuud qodobada iyo qodobo kale waxa inoo falanqeyn doona falanqeeyaha weyn ee caanka aan dhalay Ibrahim Aidiid qodobada iyo qodobo kale ayuu inoo falanqeyn doona daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta haddii ay tahay daawada markii ugu horeysay ee aad na soo booqato waxaanu ka codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto si ay anaga dhiirigelin nagu noqoto aad iyo aad baad u mahadsantihiin daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena hadaladii Ibrahim Aidiid waxa ka mid ahaa sida tan horta been buu sheegay cad anigu waan ka daba tagay cidii ma garanaysaa uu sheegtay inay soo dhaweysay oo dee la garanayo Soomaaliland u shaqeyso meesha fadhida waxaan xogtaan raadiyay horta kelmadda been buu ka sheegay dad nool oo shaqeynayo oo Soomaaliland u shaqeeyana ayuu been ka sheegay waxa ku kalifayaan waxa weeyaan inuu garanaysaa ku jiro og yahay arrimaha uu ku jiro og yahay waxa madaarka ka soo qaaday oo ku soo dhaweeyay protocolka arrimaha dibadda ka socda waxa soo diray wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawaale waxa kale oo la kulmay safiirka Soomaaliya oo fadhiya Djibouti Soomaaliya Israel Challenge kala Israel Al Challenge Abi Muuse Faarax oo First Secretary safaaradda Soomaaliya ah kaasoo ah ninka isku xidha ee qolada Khaatimo iyo qolada Awdal State sheegta mar walba yimaado Somaliland waa nin laga soo horiyay safaaradda Dooxa iyo Kuwait labadaba arrimaha imika uu ku jiro baa ma garanaysaa markaan uu ku jiray horta sida Djibouti uu ku tagay iyo sida uu la kulmay iyo cid la kulmay waa taan sheegay oo aanu beenin karin ninka safaaraddii Somaliland ka been sheegayna wuxuu runka sheegaya ma jiro maalintan dhaweysto ambabaxan iyo kacdoonkan uu wadana sidii ay rabeen qolada Djibouti soo diratay iyo Soomaaliland inta ka soo jeeday soo diratay ama Djibouti noqotay ama iskala noqotay sidii ay wadeen umay dhicin ayagu waxay sawranayeen sawirkii ka dhacay sidii ay laascanood magaranaysa ka rideen dagaalka oo kale kacdoon noocaas oo lagu dhinto oo calaamad isdhexya oo biliiskiga shacabka iska hor keeno taasi wadeen laakiin boorba laascanood maaha Somaliland tii markaa ay magaranaysa maalinta maaha way ku khasaareen ma oran kara sidii ay ugu tala galeen may noqon isaguna Somaliland ha noolaato ayuu ku celceliyo ka caleysay dad badan oo soo diray ama dee eegayay meeshan oo social media hadee aanu hayna qoraaladoodii waxay kaga falceliyeen sidii ay sawirkay doonayeen iyo wixii ay meesha ka filayeen may helin runtii boormana meel inay yar oo ka aqal badan karo dadka kale kuma qof aqoonyahanka ah waxa ay xaaladda taagan arkaya ma aha marka horta maxamed waa ka maxamed hadda dib ugu noqon taariikhda waxayna gafaran isaga iyo ninka la dhahaa ina muumiseed wasiirka ahaa
istaahilin wasiir laga dhigo ee qaladaadkan galle ka mid tahay labaduba markii Ethiopia ay sida qaldan ku doonaysay farmaajadooda socdeen sayra ay ku celcelisay dowladda Ethiopia iyadoo nagala hadal waxay u tageen ugaaska waxaanay taageerayeen arrintaas sayra kilibadoodu way yaalaan dee ina abiyo kale waa loo baahan yahay meesha waa loo baahan yahay iyo lahaa dee magaranaysa wax wanaagsan oo magaranaysa loo baahay buu ka dhigay adoo waxayna waynaan bixinay jaarkeenu doonayay wadada khaldan ku doonayay markii wadada saxan ku heshiis ku soo galayna uu ka horin taas waxay ku tusaysaa inuu yahay qof Soomaaliya ka soo horjeeda ee aan ahayn sida uu afkiisa ka sheegayo qof madaxweyne ka soo horjeeda madaxweyne waa shakhsi waa ka soo horjeesan karaa laakiin dalka interestkiisa ayuu ka soo horjeeda been buu sheegay oo ma oranayo dalkii baa ka soo horjeeda ma oran karo laakiin ficilkiisu dalkii buu ka soo horjeeda waana lagu shaqaysanayaa cid kale ayaa ku shaqaysanaysa ilaa maalintii laascaanood laga rarayay dadkii laga shakiyey raxweynta ahaayee ay dalbadeen weliba reer laascaanood ilaa intii dagaalku socday dhinac kale ka soo riday cabdirasaaq khaliif baan markaan ku shaqaysanayay oo la dhinaca markaa anti Somaliland nimay ku shaqaysato weeyaan dad badan baa lahaa yaan la taaban yaan la hadlin ila la xisaabtamo oo sharciga la mariyana oo sida ugu wanaagsan ee mustaqbalka Somaliland ugu wanaagsan isagana wanaagsan maalin walba waxaan arkaynay isagoo mas'uuliyiinta dowladda ugu yeedhaya maxay dayin golaha sharci dejinta oo le waan waraysanaa iyo magaranaysa kaalay halkan meeshu shalay dadka ugu yeedhayay xildhibaanka ahaa ee kii ugu dambeeyay ku haystay maayarka ahaa inuu isaguna magaranaysaa sharciga lagula xisaabtamo oo wixii uu laga sheeganayo ama dacwad loo haysto uu sharciga ku kalsoonaado uu xildhibaanka ku yahay dee ayay ahayd inuu buturiyey iyo inuu meeraysto buturiyo meeraysi kala kaxayn maayaan dowladda Soomaaliya waxaan kula talinayaa inaan ninkaa kadinka laga furin maxay tahay baarlamaanka oo aanu soo gelin sharcigana la mariyo oo haddii wax lagu helana lagu qaado haddii lagu waayana dee la sii daayo saas aan kaga jawaabi karaa marka su-aasha jawaabteeda dib u noqdo maxamed abiib waa nin muuqda oo qof kastoo caqli leh uu garanayo dadkii maalinta dhintay soo saarnaa dhalinyaro iyo carruur bay u badnaayeen garanayo uun waa reerkiinii wax kale oo ka fog aan garanayn dhowaan waxaad bartad Facebook ku leedahay aad soo dhigtay shakhsiyaad ka soo jeeda Somaliland kuwaasoo xilal ka haya dowladda Xasan Sheekh ee federaalka Soomaaliya isla markaana maalmihii ugu dambeeyay istaba yaacayay ayagoo oo markaasi ra'iisul wasaare ku-xigeenka ama xilka ra'iisul wasaare ku-xigeenka la doonayay in laga wareejiyo saamigaasi marka horeba aan macnaha badan lahayn Ibrahim halkee markaa arrintaasi hadda ku dambeysay ama se maxaa ka soo kordhay Saciid waa run kuwii Somaliland u dhashay iyo qaar kale oo aan u dhalan oo Israaciil maxay dir la isku raaciyay intuba waxay lagu haysteen habeenkii dhaweysto yarka reer Qarbataare Prime Ministerka ah oo dee iska samaystay Xasan Sheekh Maxamuud isagoo tusaya dadka 4.5kii haddana inankiisi uu yahay ninkaasi markii ay ku meereysteen wuxuu u sheegay inaanu isagu awood u lahayn waxna wixii loo soo sheegay inuu magacaabo Xasan Sheekh ay u tagaan oo halkaa ay kala hadlaan dee waxay ka cabanayeen wuxuu ahaa in Prime Minister ku-xigeenkii marka horeba kursi waraabotaaga ahaa laguma haysto oo cid kale loo ballan qaaday oo cidda kale ay doonayso oo raxan weyn ku yiraahdeen nimanka dee aan dal iyo dadtoona aynan ka hayn kursigan ku fadhiya kursigan dee loo banneeya oo hore ballan loola galay malaamar baarlamaanka uu sharciga marsanaya Xasan Sheekh oo dee cid walba uu laalu siinayay ayaa lagula ballamay tiibu ballankii uu oofinayaa buu yiri gurigiisii haddana u carareen markii uu yarkii Prime Ministerka soo yariyay guriga Xasan Sheekh bay soo tubeen iyagoo kontaneeye ah oo dir sheeganayo oo Somaliland ku dhashay ku kale dalka koonfurta wada socda kursigaana ma garanaysaa inay difaacaan doonayo oo habeenka ma helin waa loo diiday iyagoo bahdilan oo cabaar guriga hormareysanayay baa la soo celiyay oo lagu hurdaa ninkii subaxii dambana waxay la tahay way kulmeen imikadan waxaa la isla garab socdaa laba warba isgarab socda oo raxweynta qudhoodii way kacsantii baa la leeyahay mooshinbaa bay wadaa ay ku hanjabayso haddii tooda ay noqon weydo dagaallo ayaa gudahoodii ka socda koonfurta Soomaaliya oo dhan ilaa iyo Jubbooyinka ilaa goboladan dhexe jirib baa la soo haystaa
isagii waxaa lagu haystaa ma garanaysaa mooshin ka dhanaaba la wadaa arrimahaasoo dhan baa jira haddii ay heshiiyaanna waxa weeyaan de waa muran waa jira iyo dagaalo sokeeyo oo gudaha jilib laisku haysto arrimahaas waa kuwa mashquuliyey ee ka mashquuliyey fiqigii meelaha ka caytami jiray inaga mashquuliyey dhinaca kale prime ministerka waxaa laga sheegaya inuu ka gadar tegey oo hawlihii hore aynu usoo qaadnay ahaa in madaxda al-shabaab iyo ayaga la wada hadashiinayo in bilowgoodii la wado ayaanu filayaa halkan soomaaliyana mustaqbalka dhow sida imika dowladaha waaweyn ee etoobiya ka mid tahay iyo kuwa caalamkuba ka mid yihiin iyo inta xogagaalkiiba waxaa mustaqbalka dhow la filayaa in al-shabaab ay gacanta ku dhigto inta muqdisho iyo fiila soomaaliya iyo inta ku xeeranba dhinacan kale maxay leeyihiin jubbaland oo xagga kismaayo xagga kenya ku xidhnaan doonta xaggan maxay leeyihiin koonfur galbeed etoobiya intan xamar iyo agaarkeeda waxaa la filaya inay gacanta ku dhigi doonaan al-shabaab marka ciidamada afrikaanka ah ee lacagta la siiya badani ay ka baxaan dhowaan kuwaasoo la filaya inay baxaan akharka sanadkan dhammaanaya imika dhow wax damboo loo diyaariyey oo difaacayaan aan jirin maalinta kuwaas baxaan saacada gudahood bay imanayaan haddii alla ku reeyo kuwan kalena imikana waxa ay xoog ku leeyihiin dowladda xasan sheekh oo ay sirdoonkoodu shaqaynayaan oo haddii ay aada u dhex galeen waxaa kale oo imika siyaasadda xasan sheekhe dawaqsane ay keentay oo maanta baa la sheegay in heshiisyo ay masar la gashay dowladda xasan sheekh maanta la shaacinayay kuwaasoo iyaguna degdeg ka ah hore waxay ula gashay heshiiska badda oo wax dani aan ugu jirin maxay turkiga oo dawqa siyaasadeed MAU kaga dhacay baana la galay meelahaasoo dhan marka waxay mustaqbalkeedu u muuqdaa meesha meel al-shabaab qabsanayso xasan sheekhna beer buu ka samaystay meesha lagu dhaha Nairobi oo uu tegi doonaa isna filayo iminkana lacag ruusi buu ku jira marka kuwan somalilandna waxa dee ay loo arkaaba iminka dad aan dal iyo dad toona laga hayno magaranaysa meesha qariib ku ahoo maxay leeyihiin ayaa dhammaan loo arkaayo dee sidaa iminka ay loo hungureeyey meesha yare kursiga yare waraabowtaaga ahaa ay haysteen ayaa dee ka dhabo oo taasina waxaan filayaa inay xaqiiqdii maanta ogaadeen oo nimaan dal iyo dad toona ku darsan oo iska jooga waxay siiyaan inay u dhaanto kuwa la jooga waxay siiyaanba dee ayaa saxa dariiqii imika inay saxda soo fahmayaan baa la moodaa marka arrintu intii aan qoray de waa iyo in kaleba inaan kuu sheegay baan filayaa wasiirka warfaafinta jamhuuriyadda somalilan mudane cali xasan cali mareexaan oo maanta goob fagaaraa ka hadlay wuxuu sheegay in ay dhowaan ama wiigaga soo socda ay dhici doonaan wax cadowguna ka nixiya dadka jamhuuriyadda somalilan ay aad ugu farxaan taasoo dadka badankooda u qaateen in laga hadlayo saxiixa heshiiskii safgaradii dhowaan dhex maray dowladda federaalka Itoobiya iyo jamhuuriyadda Somaliland Ibrahim adigu hadallada wasiirka maxaad ku macnaysay ama say kula muuqatay sidoo sidaad sheegtay wasiirka warfaafintu maanta hadal uu ka jeediyey meel asuumada oo qolooyin lagu asuumayay dhigaasa baraa runtii waxay ahayd hadal dadka badan ee dee xogta raadinaya ee u dhaga daloola in arrimahan filayno ay ka heleen ama ay la dhaceen sidaan intaan ogahay waana arrin looga baahan yahay wasaaradda warfaafinta because waxaan ognahay dowladda Itoobiya wiigii walba laba goor bay ka hadashaa arrintaa oo ku faantaa waliba arrintaa MAU oo ay sheegtaa inuu gabagaba yahay dhammaanayana arrintaas ay mid ay ku faanayeen oo wax qabsoomaya ay tahay waxay update gareynayaan dadkooda sidaas baa si la mid ah looga baahan yahay wasaaradda warfaafintuna inay arrimaha kolba intay og tahay sheegto oo dadkooda soo eegaya ee dhagabarjoobay ee ku dhagabarjoobay wararka been abuurka ee cadowga Somaliland ay fidinayaan magaranaysaa inay dee u sheegaan waxa soo socda iyo halka wax marayaan waxa aad arkaysay in cadowga Somaliland mar walba warbaahinta xoog geliya inay sheegayaan wiikan ciidamadii Somaliland dhawaan la qaaday loo tababarka loo geeyay Itoobiya qarnay taasoo arrintaasoo beena halkaasoo la marsan propaganda marka waxa looga baahan yahay wasaaradda warfaafinta inay dadka haddii alla ku roon yahay magaceedu siduu yahay warfaafinta iyo wacyigelinta ay kaga dhabayso oo
ay wararka been abuurka ee laga sheegaya dalkana ee dadkoodii lagu khalkhalinayana dee ay ka jawaabaan oo ay beeniyaan kuwa maxayday ummadda ka qarsoon ee wanaagsan ee positifeka la sugayana ay kulba halka wax marayaan sidii muku kore ay ka sheegeen marka wasiirkan ku hambalyeynaya waxaana idinka baahan yahay intaa iyo in ka sii badan ayaan leeyahay dhowaan waxaad si adag u dhaliishay hadal ka soo yeedhay murashax xisbiga mucaaradka ee waddani adigoo ku eedeeyey murashaxa inuu si qaawan u beegsaday ganacsade aad magacowday oo ka mid a ganacsatada reer somalilan haddiiba ujeedka murashaxa uu yahay in uu uga digo ganacsatada arrimaha siyaasadda inay soo farageliyaan maxaa markaa ibraahim ku jaban arrintaas sida runtaa uu ku dhaliilay weliba ganacsadaha isagu muu magac dhabin ninku ujeedana waa dee garanaynay qaar isaga xisbigiisa ahina dee way isla markaa hadalka uu cabdiraxmaan erre yidhi magaca ninkaa dee aan aniguna sheegay ayay qoreenba oo dee qoraalka waa la hayaa walow markii dambe ay ka saareen dee laakiin waa la sawiro waa la hayaa horena way u dhacday oo dee maanta kuma cusbo xisbiga waddani inuu marar hore iska weeraray maxamed aw siciid buu ay weerareen oo ay magaranaysaa ku haysteen muuse bixi baad ka caawisay doorashadii haddii ay xitaa jirtay inta inuu ka caawiyey dee ayagaba qaar kaloo ganacsado oo maxamed aw siciid lamidii way caawinayeen oo shaki male taasi waxaa toodiina ka dhigay magaranaysaa caadi iyo sharci tii kalena ka dhigay sharci darro waa su-aal dadku inay isweydiiyaan u baahan oo aanu filaya inay gardarro tahay qofku xaq buu leeyahay dee cidduu doonayo hantidiisa u gaarkay uu leeyahay wixii inuu dee wax kaga tiro xilliga doorashada xaq buu leeyahay sida ayaguba dee dhinacooda ay magaranaysaa haddii toodaba loo raaco ay ka muuqdeen dee qaar kale oo ganacsatihii haddii siyaasad maanta laga hadlayo ganacsato ku jirtana dee way noo muuqatayoo dhowaan bay ahayd xisbiga waddani siyaasiyiin ganacsato uu soo kiciyey inay warqadii nooga akhriyeen sharcigii dalkeenna inay ayagu mid maskaxdooda ka yimi intay warqadii nooga akhriyeen ay baarlamankiina geeyeen way dhacday kuwii ka akhriyayey dee waynu naqaanaa kuwa maanta ilaa maanta ku jira siyaasaddana ee dhinacooda ku jira ayaga la jalaa ah ee muuqday ee aan isqarina ina waa la yaqaana iyada oo ayaga ku cadday taas oo ayaga siyaasiyiinta ganacsatada siyaasadda u badhadha iyaga ay ka dhex muuqatay la jalato la socoto inay haddana qaar maanta aan ka dhex muuqan weeraraan oo ay istiraadaan kuwa wax ku baqangelin kartaan cid baa u mari kartaan oo fariin cid kale u diraysaan bay ayaa ku bajin kartaan waxay la tahay inay godkaasi sheegay oo ay gardarro tahay waxa magaranaysaa ay magaranaysaa isku rooriyaan xadhigiina isku rooriyaan oo ay dadka ficil geliyaan mooyaane wax ay magaranaysaa ay u taraysaana anigu runtii garan maayo hadallada ka soo baxaya xisbiga waddanina iyo ficiladooduna waa qaar marwalba inoo muuqda sidaan sheegay dhowr goor hore weerareen oo ay ku weerareen magaranaysaa dee gardarro ganacsado kale oo matalan kale Omar oo kale dee gurigiisa ku jibinayay isaga sidoo kale xafiis ku lahayd burcawal jibiyay waa ganacsiga la weerarayay waxay galabsadeen aan jirin waxa loo kaliya lagu weerarayay waxa weeyaan in madaxweynaha isku qolatiin marka hadalkan wuxuu muujinayaa in qaladaadka dhacay iyo weerarada dhacay iyo guranta la jibinayay uu isagu aabbo ugu yahay isaga dee ay ka muuqato hadalkiisa nimankana waa nimanka dee waxay ku hadlayaan aad arkaysa ee qeyr mas'uulka ah xafladda halka habeen dhexdii la lahaa Cabdullaahi Saxaaq baa ku biiraya waddani laba inaan isku reeraba isku dhex dilay waa wax dhaco daruuri oo caadi ah Cabdiraxmaan Erre intuu mikrofoonka qabsaday buu dowladana soo weerartay dee qof mas'uul waxa kuma hadli karo oo beenta inta laga dadka iska horkeenayo iyo dowladda dee inuu ilaahayna waa kala xisaabtamaya muddo arkaysa inuu been sheegayo imika habeen dhaweydu lahaayeen qolo arabaan nagu soo biirtay iyagoo dadka been ka sheegayo intii la socotay dee kulba ku soo celcelinaya oo nasracad dhigaya xirsi uu ka aytamayo wuxuu lahaa jabadda arabka maxay dowladda ka dambaysa iyo Cabdullaahi Darawal dee waa nin gar taagan oo xaq taagan oo gardaradii maxay ku dhacday aynu arkaynay ee sharcigeena iyo dastuurkeena lagu farageliyay ee niman maxay shacib oo magaranaysa xisbiga waddan uu ka tala qaata ay ku farageliyeen xirsi waa ninka suudaankiisii inooga dhigay guurtiye iyo dastuurka bedel
dhex inooga dhigaya maxkamad iyo komishan waa idhahday maantana siduu ay uga hadlaa ma garanaysaa cabdilaahi darawal iyo beeshiisu gardarrada ku dhacday la yaaban eele buur maxay caaya reerkeele maxay jabhada dowlad baa samaysay jabhada cidda ku caankay xabsa waa adiga waana taladaadii taa maanta socotay garaash lagu shaabadaynaya waa taladaadii hortaabaad adigu ahaa maalintii axmed shiiraan iyo libaaxo oo ninka siyaasasan iyo ninka fariidsanay aanu jirin 2003 markuu dhacay ninkii jabhadda inuu samaystay isku dayay ee puntland u tegay iyo cabdilaahi yuusuf u tegay adigu ahaa markii dambena ninkii labada seeraf ee ammaanada ah ee aad tiri waan soo iibsanaya waan iska soo eegaya qoorta ka gooyay dowladda dhan ugu bereeraya adigu ahaa ninkii daahir yaalo kusoo daayay xubin komishankayna inuu yahay yidhi baastood baan la galo waan aftuubi gaaray iyo waan qabsan gaaray adigu ahaa waxaa dhacaya ninka maanta ka mas-uulka ah iyo jabhadaha la samaystay qaarna qarna tegeen qaarna gacan libax galeenna waa taladaadii oo waxaad ka heshay nimaad dhex marin karto oo marka horeba aad sahansatay oo xisbigan maanta marka horeba taladiisa iyo soo bixidiisa iyo ku dhalintiisa adigu aad lahay marka waxaan odhan karaa dad kusoo noqon su-aashii way caddahay qoraalna way kusoo qoreen xisbiga wadana idaacaddoodu oo way yaalaan meel walba horena dee way u weerareen maanta nin kale kamuu hadlay ninkaasu buu ka hadlayay siyaasadda cidda ganacsatada ku jirtaana wadani ka dhex muuqata mid la qarin kara maaha qof waliba waa ogyi maanta markii ayaga lagu dhaliili waayey toodii muuqatay ee caddayd ee dowladdu ka hadli weyday iyo dadka somalilandba inay mid kale oo aan meeshaba oolin ay maxay ayagu dadka ka saaraan dhakada dawo wahaata waxa ay ku jiraan xun ee walbana marka magaranaysa cid ka jawaabi weydo waxay ku eedayaan cid beri ka ah marka waa shaqadooda haddii baynu wax ka eegno arrimaha bariga somalilan iyo colaadaha halkaa ka taagnaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray oday dhaqameedyo sheegay inay heshiisiinayaan laba beelood oo halkaa dagaal ku dhex maray ayagoo dagaalkii huwanta iyo ciidamada somalilan dhex maray ka dhigaya mid laba beelood u dhexeeyey ibrahim sheekadii nooca ahayd ee odayaashu ay lahaayeen laba beelood baanu dhexdhexaadinaynaa halkay ku dambaysay ciidu raggii dee arrintaa waday odhan jiray dagaalkoo huwaniyo somalilan iyo dowlado kale oo dee dowladnimadeenna iyo dalkeenna kasoo horjeeda ay nagu wadeen fiqi uu sheegayo lahaa dagaalkii salaasacaanood haddaanaan ridin somalilan waa la ictiraafi lahaa dee wayna ogeen dagaalka laynagu soo qaaday inuu ka bilaabmay ictiraafkeenna maraykankii madaxweynehenu tegey shidaalka aynu qodanaynay heshiiskii saldhiggii maraykanka iyo innaga dee ayna dhex maray markan dambe dee ay kasii dartayba oo MAU-ga madaxweynehenu la saxeexday Ethiopia dee waxay noqotay waxay ahayd waxa qura laga dagaalamaya somalilan iyo dhaqaaqin iyo dowlad noqonin iyo aynu laga qabanno oo aynu dagaal ku furno galbeedkii barigaba siyaasadoodu taasay ahayd dagaalkii nooca ahaabaa rag dee la fikira ku ah sidaan sheegay gudaheena jooga oo xisbiyada ku arooro magacyo badan la baxaa ayaguna ay magaranaysaa islahaayeen dadka majar habaabiyi oo qalda oo dee magaranaysaa dhan walba wayna geemanayeen dee inaguna qoladeeda subti gaashaana way la socotay oo dhaqdhaqaaq kastoy wadaan waan la socon oon ku dhex jirnay markay sanqartirtaanay joog hoose ku duulayna joog hoose ku duulaynay welina waa la soconnaa iminkadan waxaa lagu socdaa dumar lasoo kicinayo oo iminka aanan rabin inaan ka hadlo oo ay qudhowdu laynagu mashquulinayo waxyaaba badan lanaga jeedinayo oo garanaysaa dee dadkasi inay haysteen maalmahan o dhan warbaahinta oo dhalinyaradii la shaqeynaysay qoladana ay buunbuuninaysay kolley waa arrin jirtay ee lafteedu tan kale nimankii lahaa ma garanaysaa babasjacliyo dhulmaanta la heshiisiinayana ma daynayaanoo dee mar walba sheekadaa way wadaan oo inay nagu qaldaan bay doonayaan lakin dee wax u suuragelayay waxay nagu qaldi karaan midna maaha xagga huwantana kama suurageli karto dee nimanka al-shabaaba xoog kule meesha oo ma garanaysaa al-shabaab ninka lasoo heshiisinaya cid dee waa nin ma garanaysaa dee indha adag xagga kale dee meelo badan bayna ka imanaya waa ku qaar lahaa gaashamaan gogol dhigaynaa waa ku qaar lahaa maxay halkan ku wada hadlaynaa dee way ma garanaysaa waa niman hoosaas isu wado dee la fikra kuwa aynu isdilayno marnaba deen maayaan iminka qaar ba lahaa waxa la sheegayay ma hubaan uye jigjiga inay qaar tageen lahaayeen wadahadal baanu ka furaynaa marka dhinacan kale waxaan ogahay in xaggan maxay qorlagu xigta eriyada
barkada lagu qoday reer miyiga xagga reer qorolugud ay maxay meel barkada ku qodeen oo 3 barkadood dhamaadeen meesha magaceedii magac adag bay ahayd gobolamagan iyo magac adag bay ahayd eriyada marka xaaladaas ama dagaalkan ka jira maaha dagaal horjar iyo dhexmaray iyo dhulbahante waa dagaal Somaliland iyo anti Somaliland dhexmaray oo dowladda ku jiraan oo siyaasiya oo meelo badan la isku dayay laakiin u suuro gali waayay waxaanu noqonayaa natiijadiisu waxa la isku hayaa waa Somaliland way jirtaa oo way jiraysaa waa dal jira iyo ma jirto ayaa la isku hayaa labadaas ma garanaysaa ciidanay hubka u haysta kelmadda aan ku soo sheegay dee mid la muquuniyo mooyaane midatiisa ka tanaasuli maayo bay la tahay marka qolada la fikirka ah ee dee waxaan la sidilaya waa afkaari maha qabiilo waa afkaartii naga soo horjeedaana dee gudaheena qaar joogana way jiraanoo xisbiya sheeganaya oo magacyo kale nooca sheeganaya oo kolba shaadh noo soo gashanaya dee kuwa istirina waynu naqaanaa iyagoo kuwa isqaawiyey dee hubka haysta marka mar walba oo ay jiraysaa waxyaabaha inaga yaabiya dad inaga ah oo ka sheekeynaya laakiin waxba u suuro geli maysa tiin ay noqonaysa Somaliland dhawaan agaheeda isku taagaysaa dal ka mid ah dalalka Afrika iyo kuwa caalamka ayay noqonaysaa insha Allah bidnillah wufuudna inta way isweydaranaysaa arrinteennii aynu muddada badan sugaynaa insha Allah waa gabagabo waana dhamaanaysaa dhawaan sida ka muuqata cadawgeena iyo cidda kale aynu heshiiska ku wada jirnay dowladda Itoobiya oo mar walba ka hadasha ugu dambeyntii Ibrahim sidaad adiga qudhaadu la socoto waxaa jiray in muddooyinkii ugu dambeeyay ciidamada hubanta ee ku sugan gobolka Sool ay sheegayeen in weerar ku soo qaadayaan magaalada Ceerigaabo iyo nawaaxiga gobolka Sanaag Ibrahim arrintaas halkay ku dambeysay dhaqdhaqaaqii bariga ka socday runtii dagaalkii bariga ka socday muu dhammaan Siciidow wuu jiraa waana dagaal siyaasi oo maaha mid dad wada yeelo oo ka dhaxaysa dhexmaray oo kan naqaanay reeraha ah oo dagaal siyaasi ah oo jabhado hubaysan oo waliba kala ujeeda ayaga laftoodu ay soo joogaan halkan kuwaasoo ay ku jiraan xoog badan ku leeyahay ciidanka al-shabaab iyo qolada kale ixtisaamka ah iyaguna maxay leeyihiin uu fadhiyo xukumo xogtan ka hayo imika ayagaaba kala jaban qolada maxay leeyihiin galad dagaalka iyo xukumo iyo Puntlandba waxay imika ka shaqeynayaan sidii fadhiyo xogtan hayo ka hayo lascaanood sidii fadhiyo xilka looga qaadi lahaa loo eri lahaa meeshana looga dhigi lahaa meel Puntland dee ay hoos timaata waayo wixii la isu sheegaya kale waa been oo ma jirto maamul halkaa yaalla ma jiro oo xaqiiqdu wataa kii dadka lagu dagaalgeliyay ninkaas waa maamulka u gaarka ah ee samaysanaya way beerowday marka arrintaas way jirtaa xaggan kale ee Soomaaliya lafteedii diwaaniga sheego dagaalo beerihii iyo hubabda la qabtay iyo waxba dhex yaalla oo fiinta kala dhex maranaysa waa sida aan hore u soo sheegay xagga maxay mustaqbalka dhowrina ciidamadii ajnabiga baxayaan oo ay xoog ku yeelanayaan xoogaga shabaab oo ay qayba xukumi doonaan sida fiila Soomaaliya iyo Muqdishoba aan u filayo ayaa iyana jirta Puntland lafteedu waxa way og tahay waa tii maanta waxay magacaabatay waxay magac kale ugu yeedhay laakiin wasiirka arrimaha dibadda uu eeg arrinta hubkana way ka hadashay dhawaan la isku haystay la boobay oo way dacwad ka gudbisay ay leedahay dowladda Soomaaliya ma qaadi karto hub gacanta wuxuu galay shacab iyo argaxiso marka waxay la tahay mustaqbalka dhow ee Soomaaliya haddii MAU la saxo Soomaaliland ictiraafka ay qaato Puntland way ku xigtaa oo iyadoo waliba magaranaysa way ku xigtaa Soomaaliya koonfurteeduna sidaan kor ku soo sheegay saasay u qaybsamaysaa oo dhinacyadan ka hadlay bay noqonaysaa marka halkan wax imika runtii yaalla oo magaranaysaa nimanka markii horeba inoo sheegayay sidii garaadkii jaasi uu lahaa cagaha dhulka ku haynta doorashada oo nimanka rajadoodu ku xiran tahay doorashadeenaas
weliba waddanka rajo ka qaba kuwaasoo dee isleeyihin way soo noqonayaan hadday soo noqdaan dee magaranaysaa qayb idin ka mid ahaydoo dee waa heshiin doontaan ayagu wadanina qoladinka wadanina marka mar walkastay hadlayaan nabad baan ku keenaa laascaanood bay dhahdaanoo dee niman isku ujeeda ahoo marka horena dagaalka wada galay oo ku wada jiray iminkana maxay leeyihiin dagaalkii ay sameeyeen isku rogay oo wax allo wax magaranaysaa mustaqbalo iyo guulo laga gaaray aanay jirin rajaday qabaan waa intaa imika doorashadeenna arrintooduna waa taa aan kuu sheego khilaafkooda guduhu ka taagan yahay xooga al-shabaabna waxay ku leeyihin saameyn weyn oo ilaa ninkii waalaayo dhowaan la dilay ayagaa dilay 4 xabood intay ku dhufteen ayay yidhahdeen waxaad tirahdaan midi baa lagu dilay marka dee waa meesha noocaasa markaa kolley waa isfuranay dagaal xillu dhacaba waa isfuranahay oo dee dagaalka siyaasiga ilaa lagu kala adkaado ma yeesho dawo kale waanu dhacaya xillu dhacaba oo dee laba ciidanoo soo fadhiya oo waxay isku hayaan ay tahay ma jiraysa Somaliland